maanta oo ay taariikhdu tahay labadii bishii afraad 2023 kadib markii dagaalo culus ay shalay dhex mareen ciidamada qaranka Soomaaliland isla markaana guulo waaweyn ay ka soo hooyeen ayaa taliye Faysal Cabdi Bootaan taliyaha qaybta 12aad ee ciidamada qaranka Soomaaliland waxa uu mar labaad ka hambalyo iyo bogaadin u diray ciidamada qaranka Soomaaliland guulihii ay ka soo hooyeen dirbaxadii kululeed ay ku dhufteen cadawga shirkan maanta oo ay bishu tahay labadii bishii afraad 2023 shirkan jaraa'idaan haynaa waxaan ku haynaa taliskii gooja cadde ee ciidanka qaranka waa nabadgelyo waa nabad qabnaa ciidamada huwantu shalay oo koowdii bisha ahayd waxay ku soo qaadeen weerar fadhiisimada ciidamada iyo wadadii dhexe ay taakuleyntu ciidanka u maraysay tallaabo adag baa laga qaaday tallaabo adag ayaa laga qaaday ciidanka qarankuna heegan waxay u yihiin inay difaacaan karaamadooda iyo sharafkooda iyo jamhuuriyadda jiritaanka jamhuuriyadda Soomaaliland waa la ogyahay ciidamada halkan ka dagaalamaya ciidamadii maamul goboleedka Puntland ciidamo kale oo huwan oo magac qabiil isku soo urursaday argagixisada uu hogaaminayo Cabdi Madoobe oo aan ognahay inay shalay aad u dhimatay gaadiidkoodina badankoodii halkan gacanta lagu soo qabtay ciidanka qaranku guul buu gaaray dadweynaha reer Soomaaliland meel kasta ay joogaan gudiga dabadba waxaan ugu bushaareynaa in ciidanka qaranku guuleystay oo guul gaaray oo la jabiyay ciidamadii huwanta iyo Puntland iyo argagixisadii wada socotay anagu dadka reer Laascaanood dagaalka la dhex keenay dhibaatada la dhex keenay waa dadka yagii 15 sano la nooleen dhibaato kuma nahayn laakiin niman soo duulay iyo argagixiso ku soo dhex dhuuntay iyo maamulka Puntland oo hadeer cadaystayba ayaa hawsha dagaalka keenay ciidamada qarankuna waa waajib hadii la soo weeraranayo istifaacaan dhowr jaha laga soo weeraray taliyaha aaga iyo taliyayaasha iga sareeyaa ka hadlay maxaabiista la hayo gaadiidka la hayo waxa soo dhan ka hadlay laakiin anu maanta oo ay labadii bisha afraad tahay waxaan cadeynayaa inaanu taliskii gooja cadde joogno in nabadgelyo ay tahay inaanu nabad qabno in halkan TV-ga ugu wareysanaya TV-ga qaranka yahay dadweynaha reer Soomaaliland guud iyo dawlad kasta joogan waxaan ugu bushaareynaa inay nabadgelyo tahay ciidanka qarankuna guuleysteen iyaguna cayanka ku caloolfayoobaadaan waana la soo bandhigayo warbixintii hore soo bandhigtay gaadiidka iyo hubka laga hayo huwanta ee ay ka carareen hadii Ilaahay raali ka noqdo ciidanka qarankuna hawlgalladiisii dagaal way si laban laabayaan waxay qaadi doonaan tallaabo laba ilaa waana ay ka qaadi doonaan huwanta marka hadii Ilaahay raali ka noqdo intaasaan dadweynaha reer Soomaaliland ugu bushaareynaa وورباهنتا قرنكا جمهورية سوماليلاند وحسن إسماعيل محمد حسن شاه iyo nimcaan axmed dagaal telefishinka qaranka Soomaaliland magaalada Laascaanood